السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada waa salaamantihiin kusoo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub inta badan barnaamijkan waxaan kula fargurnaa waxyaabaha update-ka kaga baahantiin koonfur India bolodka akhbaaradka kaga baahantiin ayaan kusoo qaadanaa sidaa daraadeed barnaamijkeena wuxuu ka koobnaan doonaa qeybaha hore waxaan kaga hadli doonaa update-ka kaga baahantiin OTT-ga aflaamta dhawaan OTT lagu soo fasaxi doono qeybaha dhexda waxaan kusoo qaadan doonaa qodobada waqti xaadirkan taagan qeybaha dambe ganacsiga aflaamta ayaan kusoo qaadan doonaa balse intaan guda gelin barnaamijka waxaan sheekh Xusmaan leeg kaga codsanaa haday tahay markii ugu horeyso booqanayso barta inaad nagu soo biirto sidoo kalena aad muuqaalka laag noo saartaan saaxiibada sidoo kalena share dhaha muuqaalka marka hore aan ku bilaabno waxaan update idinka siin doonaa aflaamta dhawaan OTT lagu soo fasaxi doono laba filim si weyn oo wada sugayna ayaa lagu dhawaaqay sidoo kale filim kalena waa lagu dhawaaqay filimka koowaad OTT lagu soo fasaxi doono waa filimkii weynaa blockbuster-ka taariikhi noqday sidoo kale lagu magacaabo Kartikeyato filimkan waxaa hogaamiye wiilka lagu magacaabo niqil sidaan ka warqabna filimkan wuxuu soo baxay sida diiwaan gashan 13 Agoosto bishii hore ayuu soo baxay saaxiibada sidaa daraadeed filimkan double blockbuster ayuu noqday macaash waarina waa laga xitaa filimkan luqada Tamil Telugu Hindi Tamil Malayalam dhammaan luqadaha dalka India ugu caansan ayaa filimkan lagu daawaday sidaa daraadeed hadda teamka kale filimkan waxaa si official loogu dhawaaqay filimkan in laga daawan doono barta loo yaqaan Z5 taariikhda markay ku aasaysan tahay 5 Oktoobar bisha dambe kaabin lagu soo haysan wada filimkan qaybtiisa koowaad waxaa la daawa sanadka 2014 Subrid ayuu noqday haddana filimkan qayb labaad ayaa laga sameeyay loo baxshay Kartikeyato waxaana hogaamiye wiilka loo yaqaan niqil sidoo kale waxaa tirsho ku adkaa gabar lagu magacaabo Obama sidaa daraadeed saaxiibada meel ku xariiqda filimkan waxaa la daawan doonaa 5 Oktoobar Z5 ayaa laga daawan doonaa sida hadda la xaqiijiyay dhinaca kale waxaa si official loogu dhawaaqay filimkii weyn aan wada sugayn lagu magacaabo Bimbisara sidaan ka warqabna filimkan asna blockbuster taariikhi ayuu noqday waxaana hogaamiye wiilka lagu magacaabo Kalyan Ram sidoo kale wiilkan wuxuu dhashay Junior NTR iyo dhashay sidaa daraadeed asna filimkan Bimbisara waxaa si official loogu dhawaaqay waxaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Z5 taariikhda markay ku aasaysan tahay 8 Oktoobar bisha dambe kaabin lagu soo sida hadda la xaqiijiyay dhinaca kale waxaa si official loogu dhawaaqay filimka lagu magacaabo Rangaraga Fagbagan waqti asna OTT lagu soo fasaxi doona sidaan ka warqabnaa filimkan wuxuu soo baxay 2 September sidoo kale wuxuu noqday filim disaster oo dadka qaada ayuu noqday waxaana hogaamiye wiilka lagu magacaabo Vishnavta sidoo kale waxaa tirsho ku adkaa gabar lagu magacaabo Katika Sharma ayaa filimkan tirsho ku adkaa sidaa daraadeed saaxiibada waxaa si official loogu dhawaaqay filimkan waxaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Netflix taariikhda markay ku aasaysan tahay 2 Oktoobar bisha dambe kaabin uu soo sidaa daraadeed waxaa rajayn doonaa saddexdan filim markii OTT lagu soo fasaxo qolay aflaamta turjumaan inuu soo turjumaan si daawashada aflaamta ugu raaxaysa daraadeed update-ka OTT-ga kaga baahantiin halkaas waa saaxiibada qiimaha badan xibaanada kale barnaamijkan aan soo qaadan karno waxaa kamid ah walla teamka saaxiibada qiimaha badan Farisu warkooda waa cadeystay waxaa si official loogu dhawaaqay filimkooda Farisu in la daawan doono feestada Bengal uusan ka baaqan doonin sidaan ka warqabnaa filimkan waxaa hogaamiye Talabi Vijay waxaana tirsho ku adkaa goor lagu magacaabo Rashmika Madana sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen filimkan jadwalka ugu dambeeya ay hadda dowladda loo wadaa sidoo kale bartamaha bisha Oktoobar kaabin ugu soo haysan ayaa shaqada filimkan laga farxalan doonaa teamka kale filimkan official statement ay shaaca kaga qaadeen in filimkooda la daawan doona Bengal ee saaxiibada qiimaha badan baraha social media kusoo shaacay waxay shaaca ka qaadeen feestada Bengal intay feesto weyn sidoo kale aysan ka baaqan doona filimkooda waqtigaasna oo diyaar u yahay sidaa daraadeed big clash ka dhici doona tiyaatar dhankaasi Tamil Telugu maadaama Farisu saaxiibada qiimaha badan film oo yahay bilingual luqada Tamil Telugu lagu daawan doono superstar Talabi Vijayna oo ku xarakan doona sidaa daraadeed filimkan saaxiibada jadwalada ugu dambeeyay ay hadda la doowayaan xibaanada kale aan soo qaadan karno waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo Danush shaqa ayaa ka go'an saaxiibada waxaa shaaca laga qaaday filimkiisa Captain Miller 120 maalmo aan kala joogsanan ayaa filimkan la dooban doona almost waa 4 bilood sidaan ka warqabna Danush saaxiibada qiimaha badan bartanka wuxuu kuga jiraa goolihiisa sidaan ka warqabna ninkan filimkiisa ugu dambeeyay blockbuster ayuu noqday haddana waxaa u diyaarsan film lagu magacaabo Nani Frofen oo la daawan doona 19 bishan ku jirna ay la daawan doonaan sidoo kale ninkan shaqahan wuxuu dhameystiray filimkiisa bilingual lagu magacaabo Sar sidoo kale marka dhankaas Telugu laga daawan waxa loo yaqaan Fatih filimkaas asna waxa la daawan doona 2 December ee sanadkan la daawan doona sidaa daraadeed ninkan 7 Oktoobar bisha dambe kaabin ugu soo haysan wuxuu shaqada filimkiisa bilaabi doona lagu magacaabo Captain Miller sidaa daraadeed hadda waxaa shaaca laga qaaday filimkan 120 maalmood ee la doobi doona sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waa filim weyn ban India Mintur ila magaala laga daawan doono xagga leedin saaxiibada qiimaha badan Danush bartanka kaga jiro barwaaqo
ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa kamid ah filimkii weynaa lagu magacaabo Fikram Fede saaxiibada. Filimkan waxaa la horgeeyay guddiga aflaamta Jonsore. Sidoo kale filimkan waxaa la siiyay shahaado loo yaqaan US certificate, taasoo ka dhigan qof walba da'diisa 12 sano ka weyn tahay ayaa filimkan daawan kara. Qofka da'diisa 12 sano ka yartaa markuu filimkan daawanayo waxaa qasab ah qof mas'uul ah shaleemo u soo raacan. Waxaa kaloo shaaca laga qaaday filimka wuxuu soconaa 2 saac 40 daqiiqo ayuu soconaa ku dhawaad 2 saac bar. Sidoo kale filimkan waxaa ku xifaaltami doona saaxiibada ragga kara Hirig Tagaroshan oo saaxiibada filimkan kuma tali doona gaangeysar awood badan. Sidoo kale Saif Ali Khan filimkan kuma tali doona askari meel adag. Sidoo kale filimkan waxaa la daawan doonaa 30 September ama Jamcad Kaabin lagu soo haysa ayaa la daawan doona. Sidaa daraadeed filimkan shahaado lagu daawan lahayna waa la siiyay. bal markaan soo qaadana saaxiibada aflaam tiyaatarada saaran ganacsada ay sameeyaan waxaan ka bilaabi doonaa filimkii weyn lagu magacaabo Jub. saaxiibada qiimaha badan oo ka xunna filimkan almost 80 ilaa 90% drop out iyo sameeyay maalmaha shaqada sida loo soo gudagalay sida shabakada box office ee shaaca ka qaada filimka hogaamiyaha la keenay sanad doorashada kala dul qarsamaan jamcada wuxuu keenay lacag gaaraysa 2.85 karoor. sabtidii wuxuu keenay 2 karoor, axadii wuxuu keenay 2.5 karoor, isniintii wuxuu keenay 75 la kaliya oo keenay hatta 1 karoor muusan keenin. wadarta guud filimkan ganacsigiisa wuxuu maraa saaxiibada qiimaha badan marka la isku daro within 4 days 7.8 karoor oo maraa isla filimkan ganacsigaana kuma filna maadaama saaxiibada jamcada kaabin ugu soo haysan almost tiyaatarada 100% oo laga reegi doona filimka weyn lagu magacaabo Fikram Fede. sida daraadeed waan ka xunna sanad doorashada sidoo kale dul qarsamaan saaxiibada filimka ma badbaadi doona maadaama uu noqon doona filim dadka qaada saaxiibada ogaal miisaanad gaaraysa 10 karoor ilaa 20 karoor lacag gaarayso iyo filimkan xambaarsan. sida daraadeed waxaa la rajayn doonaa filimkana maalinta talaadada iyo sidoo kale arbacada maanta talaadada iyo sidoo kale arbacada khamiis ganacsi macquul ah doo sameeyay saaxiibada qiimaha badan filimkan average-kiisa ayuu qaadan doona laakiin ganacsi macquul ah doo sameeyay dadka ay qaadi doona. bal markaan soo qaadana filimka kale lagu magacaabo Krishna Brenda Bihari filimkaasna 4 days oo tiyaatar saariyaan ganacsigiisa halka uu marayo asla fiirin doona. filimkan waxa hogaamiyay ka wiilka lagu magacaabo Nagashorian. filimkan waxa laga leeyahay dhankaasi Telugu markaan fiirno within 4 days dhankaasi Telugu saaxiibada canshuurta ka hor wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 5.25 karoor. qoliyaha jaradaha qaybiyo aan ku celiyay saaxiibada qiimaha badan filimka canshuurta ka hor dhankaasi Telugu 4 maalmood wuxuu ka soo xaray 5.25 karoor. qoliyaha jaradaha qayb waxa ku soo disaamin gaaray 3 karoor. hindi inteeda kale filimka waxa ka keenay lacag gaaraysa 15 lag ayuu kan offices kan suuqyada caalamkana wuxuu ka soo xaray lacag gaaraysa 58 lag. filimkan ganacsigiisa waxa loo yaqaan dibid idil marka la isku daro wuxuu soo xaray lacag gaaraysa 7 karoor. qoliyaha jaradaha qayb waxa ku soo disaamin gaaray 3.8 karoor. istilna filimkan ganacsiga kuma filna maadaama saaxiibadan markii la rabo filimka inuu dhameystir noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 5.6 karoor. almost darajadaas waxay kaga dhiman tahay lacag gaaraysa 1.8 karoor markuu dib u soo celiyo ee filimkan clean hit noqon doona waan u badan tahay saaxiibada maadaama filimkan hadda already recovery 85% oo soo sameeyay. sidoo kale Nagashori asna wiilkan saaxiibada culaysa badan ay ka dhigay maadaama ninka aflaamta ugu dambeysay la imaanay inta badan dadka ka wada qaadayaan. bal markaan soo qaadana saaxiibada Tuuleen History maanta oo kala fahamta aan kala daawaday maanta oo kala xalada filimada Soomaalida oo jecel sidoo kalena dunida laga jecel oo filimka lagu magacaabo Diljaale. filimkan waxa la daalaa 7 September 1996 ee la daawaday sidoo kale warqan hogaamiyaha filimka waa Jay Devgan xana kula jiray gabdhaha kale Maddo Somali Badre. sidoo kale filimkan waxa la dirin saaxiibada qiimaha badan door la xal ka qaato waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Gulshan Garoofar. sidoo kale shaqta ka bur xitaa ninka guri Amrish Boro Salam si loo yaqaan filimkan duray ku lahaa markaan fiirno filimkan Diljaale ama qalbi holcay saaxiibada waxa lagu qaras garay miisaan gaarayso 5.5 karoor ee lagu qaras garay 5 karoor bar ee lagu qaras garay cumraantiisa wuxuu soo xaray lacag gaarayso 9 karoor. sida daraadeed filimkan Diljaale natiijada saaxiibada wuxuu noqday samhid ayuu noqday. sidoo kale filimkan waxa tigid gooshay marka daawashada diiwaan gashan dad gaaraya 9,816 qof ay tigid gooshay marka daawatay. sidoo kale filimkan tiyaatar gaaray 225 shilin ama 225 shilin ee filimkan laga daawaday. lacagta gaaray 9 karoor sicirka maanta lagu jaangoyn almost wuxuu dhigantaa 94 karoor bar ayuu dhigantaa. sidoo kale filimkan wuxuu kamid yahay filimada lagu jeclaa Jay Devgan uu sameeyay. sidoo kale xageena saaxiibada Blackbuster oo maadaama filimkan aad u jecelna idinka dhiirgelin iyo sameyn weysiin muuqaalka la gareyn weysiin share gareyn weysiin comment ka soo bixin weysiin ana midaas niyajaban ka qaada shaqada oo kanaalkan saaxiibada dib u dhac ayaa ku imaanaa. sida daraadeed kanaalkan shaqadiisa inay si hor ugu socoto waxay idin ka codsanaa saaxiibada dhiirgelin muuqaalka la inoo saara share dhaha muuqaalka
comment ka soo bixiyo sidoo kale muuqaal kale ilowin in mar walba la garay dadka daawana dadka laagta saaraya waa kaafi kaleer ogaada saaxiibada muuqaalku kala badan yahay oo ka dad gaaris badan muuqaalkan youtube ku soo dad badan u gaarsiin waxaan ka codsanaa muuqaalkan la garay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan oo dhiirigelintiina waa ay muhiimada idinka dhiirigelin weysi waxa laga yaabaa meesha in maqaayadan ay danta saaxiibada qiimaha badan maqaayadan waxay ku jiri doontaa ku shidmi doontaa kaliya waa dhiirigelintiina waa muhiim saaxiibada qiimaha badan dhiirigelintiina waa muhiim saaxiibada qiimaha badan dhiirigelintiina waa muhiim saaxiibada qiimaha badan intaan barnaamijkan barnaamij la mid ku kulmayno amaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wadkuma santiin daawateen muuqaalkan hadday tahay markii kuugu hore soo boqonay channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanaa inaad subscribe noo saar sidoo kale liibana muuqaalka laga noo saarto ragtada comment noore